aragti ahaan anu waxaan leeyahay bandowgaas wax uu soo kordhinayo ma lahan sababtoo ah dadka xilliga ay isdhex galaan ama ay howl maalmoodkeeda sameeyaan oo maalintii marka bandowga habeenkii wax uu soo kordhinayo hadda oo arintan covid-19 ku saabsan ma waxba soo kordhinaysan amisanahay marka sababtoo dadku xilliga ay socdaan waa maalintii habeenkii 2 saac kadib wixii soconaysa ma jirinba marka fikirkaygu waa saasan leeyahay kulay wax uu soo kordhinayo soo kordhinayo maaragtay arintan iyo ka hortagga bulshadu inay dadaasho oo maaragtay qof kasta intii tabartiisa dalkeen waa ka duwan yahay dalal kale oo maaragtay xaaladeena iyo xaaladaha dawladaha kale isku mid maahan laakiin anigu waxaan isleeyahay su'aasha ay weydiisay wax uu soo kordhinayo yaraatee ma jirto waa aragti wanaagsan waaye xilligii lagu soo beegay maxaan ku raadhaa 8 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo waa xilligun kolba maaragtay qofkii isagana fahantiisaba iska nasan lahaa weeye waa aragti wanaagsan weeyaan aan isleeyahay taas waa jirtaa maxaan ku raadhaa qofkii sida macquula inuu iska ganacsado isagoo maaragtay goobtiisa shaqana oo maaragtay dad badan uusan isku imaanin haddii si nidaam ah uu ganacsado waa iska fiican tahay waa jirtaa dad habeenkii ganacsada annagu dad muslimaan nahay maxaan ku raadhaa in maalintan ganacsano maaragtay waaba ayaa maaragtay nagu filan waa soo dhaweynaa badan taqaanaa waxay caafimaad ku saabsan waa soo dhaweynaa laakiin bandowga waxaan leenahay waqtiga in la kordhiyo maadaama dadku ay yihiin dad garab rataahoo iska dhibaataysan dhibaato haysato cid wax siinaysaan aan la arag marka inay dadka noloshooda laga taxadiro caafimaadkooda laga taxadiro aad baan soo dhaweynayna jiridaan socoto quraan baan ka akhrisanaa islaam baan nahay haddii roob yar uu da'o la arki ma hayo mir yar haddii noo da'do la arki ma hayo waxaan gaaladaas qabowgii ay ku jiraan xilligii qabowga ahay qorrax hadday helaan waxay waa ka tagaysa waxaanoo dhan waa dhammaanayiin iyagana qorrax bay u baahan yihiin annagana roob baan u baahannahay qorraxdan yarta iyo kulaylka jira keliya ah waayo jiridan waxa keenayo waxaan leeyahay dawladda dadka ha ku dhibina waa bandum aad tiraahdaa